human to human bini aadan ayaa laga qaadaya bini aadan qaada laakiin asalkiisa hore xayawaan uu ka yimid always gacmaha biyo iyo saabuun ku dhaq hadaa saabuun waysa xataa biyo kaliya ku dhaq waxaa ugu daran oo kale jarjarooyinka markii la socdo ama basaska la korahayo kuraasta la taabanayo ama jaranjarada meesha la qabsanayo ha qabsanina meelahaas meelaha la qabsanayo oo meelaha ugu daran waaye dadoo qofkii intuu yiraahdo meeshii ku soconaya meeshii qabsanaya okay maanta waxaan iska wacyi gelinaynaa arrin baryahan adduunka oo dhan ka jirtay khatarteedana leh cabsideedana leh laakiin wax laga walwala aan ahayn waxaan ka hadlaynaa cinwaanka waxa weeyaan maxaad rabtaa maxaad u baahan tahay inaad ku ogaato coronaviruska hadda magaciisa covid-19 la yidhaah baryahan waxaa jiray coronavirus sawirkiisa electronica baryahan waxaa jiray walwal waxaa jiray badan oo adduunka ku soo kordhay laga soo bilaabo bishii December sanadkii la soo dhaafay kadib markii la ogaaday in dalka Shiinaha in muxuu ahaa magaalada la yiraahdo Wuhan in suuqeeda oo ka bilowday infection markaas aan la garanayn wuxuu ahaa oo dadka si dhaqso leh isu qaadsiinayaan markaana keenayo xanuun ilaa in la dhinto gaarsiin karo walwalka markii hore China kaliya ku sinaa laakiin markii dambe waa xuduudo ka baxsan China ayuu gaaray Mareykanka, Afrika, Yurub, Asia, Australia adduunka oo dhan ayuu gaaray haddana waxaa la rumaysan yahay 150 wadan in xanuunka uu gaaray walwalkaana ay qabaan suuliba ma ahan hadda update-kii ugu dambeeyay kan ma ka soo sameyn waxaan u maleynayaa 170 iyo wax la jir inay yihiin hadda laakiin marka aan diyaarinahay 150 wadan ayay ahaayeen inta markaa xanuunka walwalka isla qabtay iyo fiditaankiisa xanuunka xalay 8 saac iyo 50 daqiiqo markay ahayd update-kan xalay 8 saac iyo 50 daqiiqo meesha mar live waaye update-ka waxa waa automatically u sameeyaa saacad kasta waa isbedela xalay marka aan diyaarinahay 8 saac iyo 50 daqiiqo meesha marayay waaye waxa laga yaabaa inay wax iska bedeleen saacadihii ka dambeeyay inay inta ka kordheen wuxuu maraysay case-ka marka la hayay adduunka oo dhan 156,536 case ayuu marayay dhimashadana waxay markaa maraysay 5,835 inta ka bagsatay waxay ahaayeen 75,922 inta active case oo markaa cudurka qabto saacadaas inta active ahayd oo cudurka qabtay waxay ahaayeen 74,779 oo boqolkiiba 92 ka mid ah ee ahaayeen mild cases sahlanaayeen boqolkiiba 8 ee serious ay ahaayeen macnaha 5,650 very serious ay xalay 8 saac iyo 50 xaaladooda ahayd 69,129 waxay ahaayeen mild xaalad iska sahlan 757 keeskooda waa la xiray waqtigaas macnaha waxay u kala baxeen 75,922 oo bogsatay iyo 5,835 oo u dhimatay this worldwide way waa adduunka oo idin sida marka
waxaan soo qaaday halkan tobankii wadan ee ugu badnaa 8 wadan 9 wadan ee ugu badnaa ee cudurka ku dhacay waxaa number 1 ah Talyaaniga ku xigay 22157 Iran ayaa ku xigtay 12000 iyo wax la jira South Korea 8000 iyo wax la jira Spain 6000 iyo wax la jira Germany 4500 France 4400 macnaha waxa weeyaan wadamada ugu badnaa waay wadamada watahan yahay halkan waxa ku qoran 172 iyo 152 markii hore marka sidii update kan dambe waay ilaa wadamada qaarkood sida Ethiopia Kenya hal case laga helay China 8000 iyo wax la jira 80000 tiraha laga helay mar dhimashada waxay u kala badnaayeen hadaad aragto China dhimashada dhan waxaan ku sheegnay 5800 iyo wax la jira hal intay mareysay China kaliya waxay mareysay 3000 iyo wax la jira ida ugu badneed Italy Talyaani wuxuu maray 1400 iyo wax la jira and so on sidaas ayay muxuu ahaa recovery-ga reeshada China 80,000 oo ku dhacay 66967 dad ku dhow waa ka bogsadeen Talyaaniga 11,000 oo ku dhacay 2,000 ku dhawaad waa ka bogsadeen so waxa weeyaan bogsiinada sida cudurka loo qaadahayo iyo dhimashada iyo bogsiinada waxa weeyaan proportional ma ahan ana dad badan ayaa cudurka qaaday laakiin intuu dhimatay hadaad fiiriso 157 nearly 160,000 markii cudurka qaaday 5800 6,000 iska dheer u dhimatay waxa weeyaan waa wax aad u yar markii la fiiriyo sida loo qaadahayo iyo sida loo dhimanhayo iyo inta bogsatay markaad fiiriso waxa weeyaan khatarta sida looga cabsanayo ama walwalka badan ee la gelinayo ma ahan waa ka sahlan yahay so muxuu yahay marka waxaan ka hadlayno waxa saas wax yeelahayo muxuu yahay aan ka soo sheekeynay dhibaatada adduunka dhan oo ku hayo waxa la yiraahdaa coronavirus la yiraahdo coronavirus maxaa tahay coronavirus waxa weeyaan waa family virus ah oo magacooda coronavirus la isku yiraahdo laakiin si kala babaxa isku hal family waaye so this coronavirus kan hadda muxuu ahaa novel midkan cusub coronavirus wuxuu ka mid yahay coronaviruskaas sida caadiga ku nool xoolaha ku nool waxay ka yimaadaan waxay ku nool yihiin xoolaha ay ku nool yihiin xoolaha ayaan iska qaado marmarna waxaa dhici karta inay dadka u soo gudbaan waxaa jira qaar kale oo ka horeeyay coronaviruskaas hadda sanadkan December dilaacay ka horeeyay iyaga ruuxooda xayawaanka laga qaado xayawaanka iska qaadaan xayawaan ku nool oo dadka u soo gudbay waxa kamid ah MERS virus coronavirus ku kamid yahay macnaha waa Middle East Respiratory Syndrome waxa syndrome-kaas laga helay markii ugu horeeyay wadamadan la yiraahdo Mediterranean ayaa laga helay coronaviruskaas wuxuu ku noolyahay geelo ku noolyahay marka dadka waxay ka qaadeen geela ayay ka qaadeen mid kale waxaa jira I think 17-18 years ago 2002 in aydan u maleynaa SARS la yiraahdo viruskaas ee coronavirus ka mid ahaa oo aad u khatar badnaa isagana muxuu ahaa wuxuu keenahay severe acute respiratory syndrome ayuu keenahay markii ugu horeysay China isaga ruuxiisa ka bilowday laakiin isagana adduunka ayuu ku fiday so this MERS viruska geela ayuu ku dhex nool yahay geela ayaa laga qaadaya isagana waxa type of coronavirus family-ka mid ka mid ah way maxaa keena marka coronaviruska infection-kiisa infection-ka in la qaado coronaviruska maxaa keenayo waxa keenayo
xayawaanka ayaa lagu yaqaanay dan xayawaankii ayuu ka yimid bini aadankii ayuu infect gareeyay bini aadankii markuu infect gareeyay bini aadankii wuxuu bilaabay inuu asaga isu gudbiyo mar hadduu bini aadanka soo gaaray inuu bini aadanka isu gudbiyo marka infectionkiisa waxaa keenayo hadda mid ka socdo waxaweyaan from human to human bini aadan ayaa laga qaadaya bini aadan qaada laakiin asalkiisa hore xayawaan uu ka yimid nooc xayawaanka yahay hadda kan oo ka soo bilowday covid-19 oo ka soo bilowday ilaa hadda la isku raacsano mar waxa la yiraahdaa mase ahaayeen mar waxa la yiraahdaa baashaan fiidmeerte ahayd mar waxa la yiraahdaa ay ahaayeen it's not suuqa waxa dhan waa lagu wada gadahayay laakiin exactly kaas oo hadda lama dhihi karo laakiin waxa la ogyahay meesha ka bilowday waa suuq xayawaanka lagu gado inuu ka soo bilowdo and then dadkii qaaday dadkii u sii gudbiyay sida uu ku fiday marka waxa weeyaan in dadkii qaaday ee dad kale ay u gudbiyeen sida lagu qaado marka maxay tahay sida lagu qaado waxa weeyaan sida cudurrada respiratory infectionka lagu qaado respiratory infectionka sida lagu qaadaa nafsada lagu qaadaa ana viruskii wuxuu tagahayaa neef mareenka ayuu tagahayaa haddii qofkii waa hindhisahayaa ama qufacahayaa wuxuu soo deynahayaa viruska ayuu soo deynahayaa haddii qofkii u dhowaa viruska waa qaadahayaa marka sida lagu kala qaadahayo waxa weeyaan from human to human sidee kale lagu kala qaadaa aad ku qaadi kartaa waxaad ku qaadi kartaa adigoo taabtay meel viruska yaala macnaha qof qabay ayaa wuxuu ku hindhis ama ku qufacay miiska korkiisa dan miiskii aad taabatay adiga miiskii markaa soo masaxdo aad wejiga ama sanka muxuu ahaa aad ku taabato adana sidaasna waa lagu qaadi karaa marka waxa ugu muhiimsan waxa way qufaca iyo hindhisada iyo taabashada serviceka meelaha oo viruska uu taabtay ama qofka qaba uu taabtay oo adigana aad taabato incubation periodkiisa maxay tahay marka viruskan waxaa la yiraahdaa maalinta aad qaado ilaa cudurka oo ka soo baxayo waxay qaadan kartaa 14 bari ana hadii 14 bari symptoms aysan ka soo bixin then you are free cudurkii markaas waad ka nabad gashay maalintaad viruska qaado ilaa maalinta cudurka soo baxay gudaheeda waxa lagu sheegaa 14 bari laakiin case waxa jira ka duwan case ka duwan asaas waxa la arkay 27 bari case ku soo baxay qofka 14 bari kadib markii free waa taliiri haddana 27 bari markuu joogay cudurka ka soo baxay qaar waxa la arkay 19 bari lagu arkay case-kii laakiin case yar waxa waa case halal dhifa laakiin inta badan waxaa la yiraahdaa 14 bari gudahood ayuu qofka maalintuu qaado iyo maalinta la dhigi karo xanuunkii waa ka baxsatay maadan qaadin waa 14 bari soo maxaa lagu gartaa marka maxaa lagu gartaa coronaviruska calaamadihiisa maxay yihiin calaamadihiisa waxa weeyaan inta badan respiratory infectionska calaamadihiisa oo kale waaye wuxuu yeelanayaa qofka waxa ugu muhiimsan waxa waaye marka hore sidii hergab caadi ah oo kale soo influenza caadi ah oo kale waxaan niraa influenza ay hayso Soomaa sadaa isku arag sondiif iyo madax xanuun iyo qarno yar iyo saasoo kale lagu qabanaa marka hore waa wax iska sahlan and then dhun xanuun aad yeelanaysaa and then qufac iyo belana iyo qandho very high ah ayaa yeelanaysaa sometimes 41 degree gaari karto ayaa yeelanaysaa haddii marka intaas aad isku aragto meesha joogtana laga helay coronavirus waa si degdeg inaad takhtar ugu tagto waay inaad si degdeg haddii sero test la samaynayo inaad iska samayso haddii laga helay meesha aad joogto haddaan laga helin then it's no problem annaga hadda qofkii qandhaqandhi madax xanuun iyo diifdiif iyo hadda problem nagu mahayo maxaa yeelay welina ma soo gaarin
laakiin wadamada markii qofku intaas uu isku arko waxa weeyaan hadduu intaas uu yahay qofka waxa weeyaan cured inuu noqdo laga yaabaa inuu recover gareeyo hadduu intaas u ekaado waxa loo dhinto ma ahan qufaca iyo qandhada iyo ma ahan waxa loo dhinto waxa kugu filan adoo qandho jabin qaato nasiino qaato biyo badan qaato laakiin waxa loo dhinto waxa weeyaan markii uu gaaro sanbabka markuu gaaro pneumonia markuu noqdo infection pneumonia markuu gaaro oo sanbabka uu gaaro this marka waxa imaanayo acute respiratory distress imaanayo and that's very fatal waa marka loo dhimanhayo markii pneumonia uu noqdo oo sanbabka uu gaaro infectionka laakiin inta hore oo throatka dhuunta iyo joogo qufac ay qandho ku eg tahay it's not big deal laakiin mar hadduu hoos u dago sanbabka gaaro oo marka pneumonia oo sameysmo then that's waxa waaye marka loo dhimanhayo waaye qofku wuxuu u baahanayaa marka ICU ay u baahanahay because severe waxa imaanayo respiratory distress qofkii ma neefsan karo neefta ayaa ku dhagayso muxuu ahaa wuxuu u baahanayaa mechanical ventilation u baahanayaa in loo sameeyo oxygen u baahanayaa so wuxuu u baahanayaa ICU hadduusan ICU helin it's quite difficult noloshiisa waa fatal case waay haddaan laga gaarsiin ICU so macnaha wax laga naxa maahan haddii qandho iyo wax ku siman that's all laakiin maalintuu pneumonia gaaro waxa weeyaan marka muxuu ahaa neefsashada aada ku dhibto markaas waa markuu fatal uu noqonayo then maxaa marka fluga caadiga seasonal fluga macnaha influensada soo wareegto oo seasonalka waqtiyada qaboobada oo kale ay timaado iyo maxay ku kala duwan yihiin virus oo labadaba midna waxa waaye muxuu ahaa influence virus waaye midna coronavirus waaye labada virus aa keeno waxyaalo iskaga mid yihiinaa jiro inta hore muxuu ahaa qufaca iyo sanka dareerka iyo qandhada iyo waxyaalahaas qandhada inta badan waa ku yar tahay muxuu ahaa seasonal flu waa ku yar tahay sida qandhada saan oo kale sida coronavirus oo kale qandhadiisa ma laha laakiin wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan influenza virus markuu yahay waxaa yeelan kartaa dhidid badan iyo jarees iyo dry cough mar walba dry cough kafkaan xataa dry waay kafka muxuu ahaa coronavirus qaleel waay ma aan productive maan dry cough waay and sore throat waa iskaga mid muscle congestion waa iska mid weaknesskaas iyo muscle painka iyo waxyaalahaas ayaa waxaa laga yaabaa inuu dheeryahay laakiin you cannot differentiate ma kala saari kartid ilaa test la sameeyo inuu coronavirus yahay inuu muxuu ahaa influence virus inuu yahay waa isku dhow yihiin wax weyn uu kala jana kan ku xiga symptomska marka symptoms dadku dhinto waxa la yiraahdaa waxa weeyaan dadka immune depressed-ka dadka immunity-gooda hooseeya dadka waayeelka iyo ilmaha yararka ayaa inta badan immunodepressed-ka ayay tahay ayaa la yiraahdaa inta muxuu ahaa because ayaga they can develop pneumonia or bronchitis si sahlan ayay u develop karaan ilaa hadda inta la hayo dad waaweyn iyo ilmaba waxa waaye waa infect gareeyay coronavirus inkastoo ku badan yihiin dadka waaweyn laakiin waa jiraan ilmo ruuxooda oo target gareeyay viruska andays ilmaha hadday caafimaad qabaan immunodepressed aysan ahayn khatartooda ma badna hadday immunodepressed yihiin ama ay qaataan daawooyinkan immunodepressionka corticosteroidka iyo hadday muddo dheer qaadanayaan oo kale maybe they are higher risk ilmaha kale oo caafimaad qaba so sidee marka oo u socdaa xanuunka ilaa dhimashada maalintii calaamadaha kugu bilowdaan
markii laga bilaabo waxaad u baahan kartaa in calaamadaha maxay noqonayaan sanka daroora iyo qufaca iyo qandho iyo waxaa laga yaabaa inay socdaan ilaa 7 beri haddii markaas pneumonia markaas aad qaado noqdo pneumonia noqdo then hospitalization u baahanaysaa in isbitaal lagu geeyo and reason isbitaalka lagu geynayo maxay tahay shortness of breath neefta kugu dhagayso ma neefin kartid naqas ayaa kugu dhagahayo and then shortness of breath markay timaado already pneumonia ayaa develop garowday ardis ayaa develop garoobay and then waxaa u baahanaysaa ICU admission haddaadan ICU admission helin then that's fatal waa socon kartaa yeah so it takes 14 days inta markii la leeyahay within 14 days markii symptomska muxuu ahaa hore oo ugu sii socon then you are free because within 14 days waxa weeyaan symptoms hadday sii socdaan hadday sii kordhaan oo pneumonia noqdo isbitaal u baahato shortness of breath kugu dhacdo ICU you develop ARDS pneumonia acute respiratory distress and then waxa u baahanaysaa ICU haddaadan helin waxa dadka u dhimanayaan inta badanna waxa weeyaan ICU la'aanta ayay tahay waxa loo dhimanayo mortality rate marka muxuu yahay mortality rate markii loo eego virus kale waxaan niri influenza virus ayaa jiro ama SARS-ka 2002 meelahaas 17 years ago isaga ruuxiisa ahaa coronavirus fide ahaa SARS waxa u dhimanayay mortality rate-kiis wuxuu ahaa 10% boqolkiiba 10 ayaa u dhimanaysa influenza-ga waxa u dhinto boqolkiiba 1 u dhimato ama ka yar hadda coronavirus-kan hadda socdo waxa estimationkiisu yahay 3.4% inay u dhintaan 3.5 macnaha boqolkii qof oo qaadaba 3 qof inay u dhimanayso so SARS-kina waa ka sahlan yahay oo 10% loogu dhimanayay influenza-ga 1% ama ka yar loogu dhimanayana waa ka dhib badan yahay marka waxa weeyaan it's not easy xanuun 3.5% loo dhimanayo wax sahlan ma ahan waxa weeyaan how to marka liskaga ilaalinayaa inaadan qaadin xanuunkan sidee liskaga ilaalinayaa xanuunkan inaadan qaadin waxa weeyaan waxa ugu weyn ugu muhiimsan waxa weeyaan gacmahaada oo nadiifiso always gacmahaada biyo iyo saabuun ku dhaq hadaa saabuun weysa xataa biyo keliya ku dhaq sometimes xataa waxay yidhahdaan biyaha fiicanba in lagu dhaqo marka clean your hands saabuun iyo biyo qaado ama disinfectant baaladan disinfectantiga marso haddaad qufacayso ama hindhisayso xiro afkaada xiro ama tiish saar ama safaleeti saar ama haddaad wax kala weyso halkan ku hindhis macnaha xusulkaada laaban ku hindhis haddaadan wax kale aadan haysan qofna ha u dhowaan qofka waxa u jirsanaysaa 1 mitir ilaa 2 mitir WHO waxay yiraahdaan 1 mitir u jirso laakiin CDC-da waxay yiraahdaan 2 mitir u jirso soo waxaan ka soo qaadanaa 1 mitir ilaa 2 mitir inaad qofka and this is 1 mitir actually TB-da xataa markaan ka hadlayno infectionka waxaan iraanaa qofka 1 mitir u jirso maxaa yeelay 1 mitir square oo 4 gees ah waa marka qofkii hindhis ama qufaco khatarta ugu weyn meesha haddii environment-gu furan yahay hawo uu leeyahay khatarta ugu weyn waxa weeyaan waa 1 mitir laakiin CDC-da waxay ku talinaysaa 2 mitir inaad u jirsato qofka
inta u dhaxaysa adi mitir ilaa 2 mitir qofna ha u dhowaan cuntada maadaama uu ku nool yahay xayawaan ku nool yahay viruskan cunto ceeriin ha cunin wax kasta aad cunayso hilib kasta oo nooc kasta uu yahay sometimes waxaa la sameeyaa beefko kale markii la cunayo dad qaarkiis waxay jecel yihiin in la hufo keliya hufnaan maa la yidhaha macnaha in markii la jaro la kala gooyo korna inuu wax ka bisliyaa laakiin markii la kala jaro dhiig inuu ka socdo ama digaag oo kale saas ku jecel so never eat waxaan karsanayn si fiican aan loo karin waxaa iska ilaalisaa waxaan karsanayn xayawaanka iska ilaali digaaga iyo eeyaha iyo ka fogow maxaa coronaviruska ayuu la nool yahay marka inaad ka fogaato treatmentiga marka muxuu yahay sidee loo daaweeyaa xanuunkan virus waay virusna daawo ma laha the other virus ko kale influenza viruska HIV and so on it's the same virus macnaha virus oo dhan wax daawo ma laha laakiin muxuu ahaa la dhihi karaa bedelkeed waa geli kartaa waxaan in la iska ilaaliyo inaadan qaadin inaad iska ilaaliso tallaabooyinkan soo sheegnay oo muxuu ahaa faridhaqi iyo muxuu ahaa meelahan waxaa ugu daran oo kale jaranjarooyinka markii la socdo ama basaska la korahayo kuraasta la taabanayo ama jaranjarada meesha la qabsanayo ha qabsanina meelahaas meelaha la qabsanayo waa meelaha ugu daran waaye dadoo qofkii intuu yidhaahdo meeshii ku soconaya meeshuu qabsanaya so basaska sidoo kale basaska kuraastoo kale qofka hadduusan xaakada hoos dhiginba waxaa laga yaabaa inuu iskaga tiro meeshii markuu yidhaah inuu kursiga kortiisa ku tiro marka meelaha serviceka in la iska ilaaliyo isagaa iska tago coronaviruska isagaa iska tago its own sidii waxa weeyaan hepatitis oo kale hepatitis-ka maxaa niri hepatitis-ka 10% waxa weeyaan chronic noqda 90%na isagaa iska tago qofka intuu maaragtay intuu socdo there's no treatment needed sida marka isaga ayaa iska tagayo doo daawo u sameeyeen hadda idin qaybin hayaa warqadaha laakiin waxa weeyaan waa wax uun iska tacaali laakiin daawo gooniya antiviral drugs iyo in la qaato maxaa la sameynaa marka periodka hore 2 period waay periodka hore running nose-ka iyo socdo qandhada iyo qufacayo just stay home biyo badan cab qandho jabin qaado that's all rest badan qaado gurigaada iska joog biyo badan cab qandho jabin qaado laakiin markuu pneumoniada uu gaaro that's ICU aad u baahan tahay and then treatment la qaato ayaa jirto haddaan idin qaybinayaa warqadihii markaan hadda dhammayno xafiiska yaalaan so maxaa kaloo loo baahan yahay wearing mask although CDC ay ku talinaysa haddaad adiga xanuunka aadan qabin ha qaadan laakiin waxa weeyaan adiga haddaadan qabin qof kale qabo kugu imaanayo so qof kale adiga haddaadan qabin macnaha adiga inaadan gudbinayna aad ka baqay laakiin qof kale qabo qof kale aad ka qaaday so I think in qofka qaba iyo qofka aan qabinba inay xirtaan inay wanaagsan tahay that's prevention muxuu ahaa loo baahan so this is ayadii oo kooban intaan akrinahayay oo kooban meelaha laga helay adduunka ayuu sheegayaa transmissionkiisa sida la isugu gudbiyo wuxuu ka yimaadaa xayawaanka geela iyo malaayiga iyo masaska iyo
waxaasoo ku nool oo ka yimaadaa dan human u yimaadaa dan human to human transmission bilaabanayo marka animal to human way and then human to human and then symptomskiisa calaamadaha qufaciisa dhisadii qandhadii wixii aan sheegnay aan meelaha muxuu ahaa laga arki karo symptomska macna qandhada iyo qufaca iyo shortness of breath lungska pneumonia markay samaysanto these severe cases markay pneumonia samaysanto waxaa imaan karo severe acute respiratory syndrome ARDS imaanayo and then maxaa imaanaya ARDS always waxa la socon karo waxa weeyaan kidney failure and then kidney failure hadduu yimaadana death waxa way prominent way inuu qofkii inuu dhinto waxa way waa prominent way marka ujeedada marka maxay tahay aan maanta u qabanay seminaarkan coronavirus ujeedada waxay tahay because our hospital respiratory hospital sida loo yaqaan macnaha dadka aan qaabilno ama aan daaweyno boqolkiiba 70 waxa weeyaan waxay u yimaadaan cudurrada neef mareenka u yimaadaan isbitaalada noo soo refergareeya dadka haddii arkaan qof qufacahayo guulada isbitaalkiisa la geeyaa liiraa so we are in high risk in a coronavirus hadduu yimaado dadka ugu horeeyo waxaan nahay oo asiibi kara cudurka ayaan nahay who knows hadda inuu waddanka soo gaarin ma soo gaarina liiraa laakiin dadka hadda noo buuxo oo respiratory distress qabo coronavirus inuu yahay we don't know waxaan u baahanahay test inaan helno iska test gareyno alxamdulillah waxaan rajaynaynaa inuusan soo gaarin laakiin high alert inaan ahaano mar walbaba taxadar inaan ahaano haddii la yidhaah waddankoo soo galayna inaan ka sii darno alertgeena maxaa yeelay meesha ugu horeysa ay imaanayaan meelaha ugu horeysa imaanayaan waxa way isbitaalkeena ka mid ah inaan taxadirno mask aan ku dadaalno faraha inaan muxuu ahaa inaan dhaqanno in meelaha gabdhaha nadaafadda nala joogaan u malaynaa in miisadaha korkooda iyo jaranjarooyinka iyo kulli disinfectant inay mariyaan mar walbaba dhowr saac markii la joogaba inta la mariyo maaska xirshadiisa inaan badino ayaanu laga baahan yahay wax laga walwala ma jirto hadda khatar ma jirto laakiin something imaan kara waay haddaad qandho iyo isku aragto madax xanuun iyo diif isku aragto isa soo report garee dhaqsi soo report garee waxa weyn fasaxan ku siinayna gurigan ku direena ilaa aad ka soo reesay la qof walba iska yeelin qabo inuu qof kasta qabiyo iska yeelin soo waxa weeyaan sababta marka inaan taxadirna isku sheegayno walwal ma qabna hadda laakiin anything can happen anytime marina taxadirano inaad foojigantiin inaad waxa laga hadlayo aad garanaysaan abna waxaan ka hadlaynaa waa garanaysaan ma fahmaysaan waxaan ka hadlayn waxay yihiin khatarta iyo waxa muxuu ahaa maska lagu dadaalo that's the most important thing in la xirto gloves waxa ka muhiimsan in gacmaha la dhaqdo ayaa ka muhiimsan gloveska waa isku hadlayn kartaa gloveska dad waxay soo malaynaa safe tahay adoo saan dhahay arkaysaa marka isaan sheegayba macnaha markii inta hore waa iska sahlan yahay hergebka iyo qufaca iyo madax xanuunka intaasoona ku ekaada inta badan macnaha saa arkaysaan statistikada inta badan waxa waa recovery 80,000 160,000 recovery ayay noqotay waxa active-ka hadda u ahaa waxa 75,000 dad ku dhaway ahaayeen hadana iyagan intooda badan recovery ay helaan intaysan ICU gaarinba laakiin case-ka ICU u baahnaa pneumonia ARDS-ka develop gareeyo annaga waxaan moodaa waddankeena in muxuu ahaa ilaahay naguma keeno ilaahayna ma soo gaarsiiyo
laakiin inaan u dayacannahay mayla ICU male wadankan hadduu jirana meel ama laba meel ayuu ka jiraa isagana meel u diyaarsan ma ahan in intaasoo qofood inay qaabisho ama meel infectious disease ICU infectious disease u diyaarsan inuu yahay muu malaynahayo marka haddii muxuu ahaa dadka talada ka go'da ay maqlahayaan gaar ahaan dadka muxuu ahaa caafimaadka mas'uuliyiinta waxaan maaragtay aan